waqtiyada ka mid ah waxaa jiray nin beeroola ah kaasoo ku noolaa meel tuulo ah oo u dhow meel kayn ah. beertiisu waxay ahayd mid aad u ballaaran oo ay ku yaalaan dhir kala duwan oo uu ka mid yahay geed weyn oo tufaax ah. sidoo kale ubaxyo iyo weliba dhir kale oo aad u qurux badan ayaa ka mid ahayd dhirta ku taallay beertiisa. markii uu beerooluhu ahaa ciyaal ama kuray waxa uu waqtigiisa inta badan uu ku bixin jiray inuu ku ciyaaro geedkan weyn ee tufaaxa ah. maalmahaasi geedkan tufaaxa ahi waxa uu lahaa midho aad u qurux badan oo markasta uu dhali jiray isla markaasina laga goosan jiray, kuwaas oo marna sharaab uu u isticmaali jiray beeroolahani marna uu cuni jiray. ha yeeshee taas waqti ayaa ka soo wareegay. geedkii tufaaxa ahaana hadda waxa uu noqday mid gaboobay oo joojiyey dhashii, isla markaana haatan aan dhal iyo dhiiq midna laga hayn oo aan midho soo saarin. hadda beerooluhu wax midho ah kama helo geedkan. waxaan u go'aansaday in geedkan uu yahay mid aan faa'iido lahayn, sidaasi daraaddeedna waxa uu go'aansaday inuu geedkan jaro oo uu isticmaalo looxiisa una adeegsado inuu ka sameeyo furniture ama qalabka guryaha. waxa uu dareemay inuu geedkani uu aad u weynaaday isla markaasina uu ballaadhay, balse faa'iidada kaliya uu leeyahay ay tahay in laga sameeyo furniture ama fadhiyada iyo sariiraha. waxa uu ilaaway maalmihii carruurnimo iyo xilligii uu waqtigiisa ku bixin jiray inuu geedkan marna ku ciyaaro, mar ku boodboodo, marna uu midhihiisa tufaaxa uu cuno. hadda geedka tufaaxa ahi waxa uu hoy u yahay cayayaan iyo xayawaan aad u tiro badan, kuwaas oo guudkiisa iyo gudihiisaba ku nool, qaarkoodna ay daris leeyihiin. waxaa ka mid ah dabagaale, noocyada shimbiraha waaweyn, kuwa yaryar iyo weliba cayayaan. beeroolihii waxa uu soo qaatay faashkiisii waxaanu bilaabay inuu garaaco geedkii tufaaxa ahaa si uu u gooyo, laakiin xayawaankii yaryaraa ayaa dhammaantood soo yaacay isla markaasina soo ururay. waxa ay bilaabeen inay baryaan ninka beeralayda ah. hareerihiisa ayayse soo tubeen, waxaana yidhaahdeen, fadlan ha jarin geedkan, waanu ku ciyaarnaa, waanan kugula ciyaari jirnay wakhtigii aad yarayd. waxaan u adeegsanaa ama ugu ciyaarnaa sidii carruurnimadaadii oo kale. geedkani waxa uu qaarkayo u yahay hoy ama guri, mana haysanno meel kale oo aanu tagno, ayay yidhaahdeen. beeroolihii uma dhag jalaqsiin, waxaanuu sii waday inuu faashkiisa uu la soo baxo si uu geedkan dhaqsa uu ugu garaaco. fadlan geedka ha jarin, hana burburinin, waa gurigaygii iyo guriga carruurtayda, ayuu yidhi dabangaalihii. fadlan ha garaacin, hana burburin geedkan, waxa ku yaala buulkaygii, waxaa tidhi mid ka mid ah shimbirihii. fadlan ha jarin geedkan tufaaxa ah, ayuu yidhi mid ka mid ah cayayaanka loo yaqaano ayaxa oo isaguna geedka ku noola. ha yeeshee beeroolihii waxa uu ilaaway xilligiisii carruurnimo iyo faa'iidadii uu geedkan ka heli jiray iyo saaxiibtinimadii uu wakhtigaasi la wadaagi jiray. waxaanuu hadda bilaabay inuu si rasmi ah oo dhaqsa ah u garaaco geedka. dhammaan xayawaanadii waxa ay noqdeen qaar niyad jabay, waxaanay jeclaan lahaayeen inay geedkan ilaaliyaan, iyadoo ay ka go'an tahay qiimo kasta oo ay ugu kacayso inay badbaadiyaan geedkan. mid ka mid ah xayawaanka yaryar ayaa yidhi, waanu kuu heesi doonaa marka aad daalan tahay ee aad daal dareento. waxaanu kuu eegi doonaa ama kuu ilaalin doonaa ilmahaaga yar, mana ooyi doonaan. taa beddelkeedana waanu madadaalin oo waanu ka farxin. adiguna heesahayaga marka aad dhegaysatid daal ma dareemi doontid. mid ka mid ah shimbiraha ayaa sidaasi tiri. ha yeeshee dhawaaqooda iyo weliba oohintoodu waxa ay ku dhacaysay dhaga awdan. niyadjabkii codsiyadooda uga yimi ay ka qaadeen iyo weliba waxay arkayeen beeroolihii oo sii wada inuu geedka garaaco. ha yeeshee isagoo geedkii garaacistii wada ayuu wuxuu arkay hal mar shay dhalaalaya. waxa uu aqoonsaday ama uu gartay inay tahay malab shinniyeed. waxaa buu dhacay dhocor iyo goddhan oo buuxa oo malab ah. waa uu dhadhamiyey, waxaanay taasi keentay ama hurdadaysa ayay ka kicisay oo dib waxay u xasuusisay malabkan oo geedkan ka cuni jiray xilligiisii carruurnimo. waxay ahayd dhadhamo aad u cajiiba oo uu lahaa malabku, isagoo jeclaystay inuu wax badan uu ka sii cuno malabka, taasoo siisay dareen farxadeed, isla markaana uu mar qura dhoolla caddeeyey farxadna uu dareemay dhadhamada cajiibka ah ee uu ka helay malabka shinnida awgeed. waxaan u aqoonsaday xaqiiqada isaga oo beddelay dabcigiisii. xayawaankii ayaa mar kala hadlay iyaga oo meesha ku urursanaa. waxaa markana hadashay
shinnidii iyadu malabka soo saartay oo tidhi mar kasta waxaan ku siin doonaa malabkaasi aadka u macaan. dabangaalihii ayaa mar kale hadalka ku soo noqday oo yidhi mar kasta waxaan kula wadaagi doonaa waxa aad jeceshahay. shimbirihii ayaa ooyey oo yidhi waanu kuu heesi doonaa heeso badan oo ka mid ah codadkayagii aad jeclayd. ugu dambaynna beeroolihii waxa uu go'aansaday inuu khaldan yahay, waxaana u muuqatay qaladkiisii isagoo markaasi tuuray faashkii. waxa uu fahmay in geedku uu yahay guriga xayawaan iyo weliba cayayaan aad u tiro badan, kuwaas oo mar kasta nolosha muhiim u ah, sida shinnidan malabka soo saartay iyo shimbiraha dhawaaqooda dhegtu ay ku raaxaysato. waxa uu jeclaystay xilligiisii carruurnimada sidii uu u jeclaa noloshan. waxa ugu dambaynna uu xaqiiqsaday in geedkan tufaaxa ahi aanu ahayn bilaa midho. ugu dambaynna geedkii ayuu badbaadiyey. waxa uu meel fog ku laliyey faashkii uu rabay inuu geedka ku garaaco, isagoo ugu dambaynna yidhi run ahaantii makhluuqaadka iyo waxyaabaha yaryar ee cayayaanku ka mid yihiin, waxaan idiin ballan qaadayaa geedkan inaanan jari doonin. waxaan xaqiiqsaday qaladkayga oo aan qaatay. dhammaantiinna waxaad ku noolaanaysaan si nabada hadda kadib iyo farxad. cayayaankii yararaa ayaa u mahadnaqay shinnidii iyadu malabkeeda awgeed, sababta uu u noqday inuu beerooluhu joojiyo jaritaankii geedka markii uu helay malabka macaan. maxaa yeelay waxay dhammaantood noqon lahaayeen haddii geedkaasi la jaro dhammaantood qaar derbi jiif ah oo aan guri iyo hooy haysan, waxaanay sii heleen nolol farxad leh oo ay ku sii noolaadeen geedkii. ugu dambaynna nuxurka sheekadani waxa weeye shay kasta ama wax kasta oo nool faa'iido ayuu u leeyahay nolosheenna ee aynu ilaalino oo yaynaan burburin.